بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد أنت حنوننا الله إلدرنا إلهي وحن قبر يا عافمات هاما ومد الجود الصوماليين ولا اللي وحن فتشيني محمد إلهي محمد سو أنت كبعد أنا جو أفينك حوق الدلك الصومالي أفينك عيدك حوق الدلك الصوماليين غيبت قبل كمود تلسك إسطنبول وحال كان عاوة شركة جان شريد وقاهد لجا دولان كقاون مدحوين سعيد عبد الله الدني بوصاصه قرره يقرأ وكسو قاضي isagoo sheeganayay inuu la dirirayay ciidanka federaalka intaas oo ciidamada federaalka ku sugan yihiin soo dhaafay uu gaalkacyo ka wado waxaan ognahay habeenka caawa magaalada gaalkacyo bar inay qaxday dadkii in shicibkii qaxayaan in xeriyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed go'doomin lagu hayo meelaha qaar ku laga go'doomiyay haddii aan shaqaqadaas laga dayn waxaan si toos ah u cadeynaynaa inaynu dagaalka qayb ka nahay ummadayada iyo magaalada iyo gaalkacyo oo laga soo duulay duulaanka qaawan oo lagu soo qaaday cidda ku soo qaaday Puntland iyo maamulkeeda ugu horeeyay inaan gacanta ka qabanayno wardegdega xiisad culus ayaa ka tagan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taas oo u dhaxaysa ciidamadii sheegay dhawaan inay ku biireen safka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwii halkaasi laga diiwaan galiyay oo la qoray waxaana wararka aynu helayno ay sheegayaan in maamulka Puntland ciidamadii ugu badnaa uu ku goodoomiyay xeryaha ay degan yihiin ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya safkeeda ka tirsan waxaana ka jawaabay isla markaana fariimo muuqaal ah soo duubay qaar ka mid ah ciidamada safka dowladda federaalka Soomaaliya ku biiray ee xerooyinkooda markaasi la go'doomiyay oo ciidamada faraha badan maamul goboleedka Puntland uu dulligay waxa ka soconaya gudaha magaalada gaalkacyo waa sidee xaaladda guud dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa ee halkaasi ka jira ciidanka BSF iyo sidoo kale ciidanka danab oo u muuqda markan in ay hal dhinac wada mareen isla markaana si toos ah fariin ugu direen maamulka Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye dagaal ooga BSF xeradeedii gaalkacyo waa la goodoomiyay waxaana suuragal ah in halkaasi dagaal weyn uu ka qarxay si lamid ah waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalkii koobnaa ee shalay ka dhacay gudaha Boosaaso oo u dhaxeeyay ciidanka BSF iyo sidoo kale ciidamada BMBF ee dowlad goboleedka Puntland guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada Puntland dhaqdhaqaaqyada soconaya go'aanka ugu dambeeyay Saciid Cabdullaahi Dani uu ka qaatay ciidankan iyo xilliga markaasi uu doonayo inuu soo gabagabeeyo joogitaankooda gudaha deegaanada Puntland ciidamada safka federaalka ku biiray ayaan kula wadaagayaa soo dhawaada wada muuqaalka like sar marka hore aragtidaada qaybta faallada ku dhiiba Saciid ma ku guuleysan doonaa in sida ugu dhaqsiyaha badan gabi ahaanba uu meesha uga saaro jiritaanka ciidamada safka federaalka ku biiray oo deegaanadaasi aan looga arkin wax ciidan safka federaalka ku jira oo ku sugan waxgaaga wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ku waramaya in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu qaatay go'aanka madambeysa oo ku aadan ciidamada ku sugan gudaha deegaanada Puntland ee ku biiray safka dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Saciid ayaa xogaha aynu heleen waxay sheegayaan in ka hor 1 August oo dabaaldega markaasi sanad guurada aasaaska dowlad goboleedka Puntland ku beegan inuu doonayo inuu soo gabagabeeyo joogitaanka ciidanka safka federaalka ku biiray ee ku sugan gudaha deegaanadaasi xogaha aynu heleen waxay sheegayaan in madaxweyne Saciid uu markaasi u sheegay lamaha ammaanka guud ahaan iyo saraakiishaba in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo joogitaanka ciidanka aan ahayn markaasi kuwa dowlad goboleedka Puntland ee gudaha deegaanadaasi ku sugan ka hor 1 Augustina loo baahan yahay in Puntland aysan joogin wax aan ka ahayn ciidamada ammaanka ee dowladda Puntland hadalkan iyo amarkan la siiyay saraakiisha waxa uu muujinayaa sida madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay uga go'an tahay in si degdeg ah uu weerar ugu qaado xeryaha ay degan yihiin ciidamada safka dowladda ku biiray isla markaana uu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo gabagabeeyo dhammaan xeryaha ay degan yihiin ciidanka dowladda federaalka safkeeda ku biiray ee ku sugan gudaha deegaanada Puntland si gaar ah magaalooyinka gaalkacyo qarno Boosaaso sidoo kale Garowe ayaa maamulka Puntland waxa uu duldhigay ciidamo badan magaalada gaalkacyo ayaa halka markaasi ugu weyn ee saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka ku biiray safka federaalka xerada ugu weyn ee Istanbul lagu magacaabana waxa gabi ahaanba markaasi duldigan ciidamada ammaanka waana la go'doomiyay mana jirto ciidanka federaalka halkaasi ku sugan meel ay ka bixi karaan ama saanad military iyo gurmad markaasi uga soo gali karo talaabadan waxay muujinaysaa in Saciid uu doonayo caawa ama birri markaasi midkood in weerar ballaaran oo kama dambaysa uu ku qaado ciidankan si markaasi gabi ahaanba uu soo gabagabeeyo 1 Augustna Puntland ugu dabaaldegto iyada oo gudaha deegaanadaasi aysan ku sugnayn waxaan ahayn ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland haddii Saciid uu qaado weerar degdeg ah oo ka dhanax ciidamada safka federaalka ku biiray waxay ka dhigan tahay in uu ku guuleysan doono inuu soo gabagabeeyo joogitaanka ciidanka safka federaalka ku biiray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani maalmihii ugu dambeeyay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa uu ku daabulayay
ciidamo aad u fara badan oo qaybaha kala duwan ee ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ka kooban waxaana lagu sheegay tallaabadaasi inay tahay mid uu ku dadejinayo in uu kaga guuleysto ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay deegaanadaasi ka diiwaan gelinaysay waayadii ugu dambeeyay iyo ciidamo beeleedyadii ku biiray safka dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu arko inay yihiin kuwa caqabad ku ah jiritaanka iyo sidoo kale dowladnimada Puntland isla markaana uu go'aansaday in si degdeg ah uu soo gabagabeeyo marka laga soo tago go'aanka Saciid uu qaatay magaalada Gaalkacyo ciidamada ku sugan ee safka federaalka ku biiray waxa ay sheegeen in ay si dhow ula socdaan go'doominta lagu sameeyay isla markaana aysan u dul qaadan doonin in xeryahooda ay dul deganaadaan ciidamada madaxweyne Saciid uu soo diray waxa ay sheegeen inay dagaalami doonaan isdifaaci doonaan sida ugu dhaqsiyaha badanna tallaabooyin waaweyn ay u qaadi doonaan ciidamada qaar waxay sheegeen in ay hadda diyaar u yihiin inay dagaal la galaan ciidamada Saciid Cabdullaahi Dani uu soo diray sida hadalka ay u dhigeen magaalada Gaalkacyana aan lagu go'doomin karin iyaga oo ah ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ku biiray deegaanadaasina ka soo jeedo dhinaca ciidanka danab ee Jimcaale uu hogaamiyo waxa markii ugu horeysay ay si toos ah uga hadleen xiisadda iyo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gudaha deegaanada Puntland war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka danab ee uu hogaamiyo General Jimcaale ayaa waxa markaasi lagu yiri dagaal oogay hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu doonayaa in mar kale Gaalkacyo uu ka dhigo sidii horey markaasi uga sameeyay magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe in uu ka dhigo goob dagaal isla markaana dagaal sokeeyo uu ka abuuro waxay sheegeen inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada gudahaan waxaana loo baahan yahay ay yiraahdeen in aan la sameeynin wax duulaan iyo dagaal ah xaaladda gudaha Puntland ee siyaasadeedna markaasi wada hadal lagu xalliyo oo miiska wada hadalka la isugu tago dhinaca markaasi ciidamo si gaar ah u tababaran oo iyaguna kamid ahaa ciidamadii ka howlgalay buraleyda calmiskaad ee gobolka Bari oo saxaafadeed soo saaray waxay dhankooda sheegeen inaysan marnaba diyaar u ahayn ka qaybgalka dagaal sokeeye oo Saciid Cabdullaahi Dani uu furinayo waxayna sheegeen inay iyagu mar walba diyaar u yihiin in markaasi nabadgelyada iyo sidoo kale ammaanka deegaanada Puntland ay ka qayb qaataan ciidankan oo lagu magacaabo Calmiskaad Defense Force waxay sheegeen inay diyaar u yihiin sugidda amniga laakiin marnaba aysan qayb ka noqon doonin dagaal sokeeye oo gudaha deegaanada Puntland ka dhaca madaxweyne Saciid ayayna ugu baaqeen in looga baahan yahay in uu tixgeliyo nidaamka dowladnimo ee Puntland iyo sidoo kale kan dowladnimo ee federaalka waxay sheegeen ciidamadan in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda ku sugan gudaha deegaanada Puntland uu yahay xaq dastuuri ah Saciidna looga baahan yahay khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya siyaasiyiinta in wada hadal iyo sidoo kale deganaan markaasi miiska wada hadalka lagu soo gabagabeeyo xaaladdu waxay u muuqataa inay sii cakirmayso ciidanka danab ee Jimcaale waxay sheegeen in ciidanka BSF lagu xadgudbay isla markaana loo baahan yahay in si degdeg ah looga raali geliyo waxay sheegeen BSF inay kamid yihiin ciidamadii u halgamay jiritaanka Puntland ka qayb qaatay sugidda amniga waqti naf iyo sidoo kale maalba markaasi u huray difaaca dowladnimada Puntland isla markaana qalad ay tahay in lagu xadgudbo waxay sheegeen inay barbar taagan yihiin ciidanka BSF oo ay xaq u leeyihiin in gudaha deegaanada Puntland ay ku sugnaadaan ciidanka danab iyo Jimcaale waxay u muuqdaan in heshiis nabadeed ay qaateen laakiin hadda markaasi si tartiib ah ay u muujinayaan sida ay u xun yihiin dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gudaha Puntland ka soconaya iyo sidoo kale habdhaqanka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ay ku eedeeyeen inuu yahay shakhsi markaasi u dhaqmaya sidii kaligii talasnimo oo kale Puntlandna marnaba aysan qaadan karin nidaam kaligii talis ah waxay sheegeen in Puntlandna wadajirkeeda iyo sidoo kale midnimadeeda ay muqaddas tahay isla markaana shakhsi kaliya uusan noqon karin midka waxa uu doono markaasi ka sameeyo gudaha deegaanada dowlad goboleedka Puntland kuna ciyaara jiritaanka iyo dowladnimada Puntland xaaladdu waxay u muuqataa inay sii cakirmayso marka ka dambayso madaxweyne Saciidna waxa uu markaasi go'aansaday sida hordhaca uu ku sheegayba ka hor bisha August inuu soo gabagabeeyo joogitaanka ciidanka federaalka ee ku sugan gudaha deegaanada Puntland haddaba ma ku guuleysan doonaa Saciid ka hor 1 August in gabi ahaanba ciidanka safka federaalka ku biiray ee ku sugan gudaha deegaanada Puntland uu si dhammaystiran markaasi u soo gabagabeeyo oo meesha uga saaro hubka dhigisna ugu sameeyo aragtidaada qaybta faallada ee commentiga nagula wadaag